muuqaalkeenan maanta waxa uu ku saabsanaan doonaa sharciga cusub ay soo saartay YouTube khaasatan bishan March 2021 kaas oo saameyn doona YouTuberska Soomaaliyeed ku soo dhawaada muuqaalkeena hadaba. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذا صاحبي يلا مركله iyo muuqaal cusub yani waa Khalid Abdulrahman muuqaalkan maanta waxaynu faahfaahin kaga bixin doonaa sharciga cusub ay soo saartay YouTube sanadkan 2021 khaasatan bishan March kaas oo sheegaya ama tibaaxaya habka cashuur qaadida ama cashuurta laga qaadayo YouTuberska ku nool meel ka baxsan Mareykanka ama US sharcigaas oo marka YouTube xaq u siinaya hadii aad buuxin weydo in lacagta soo gasha channelkaaga la qaato in ka badan 24% marka sharcigaas ay faahfaahin badan ka bixin doonaa iyo su'aalo fara badan muxuu yahay muxuu dhibay inoo keenaya iyo waxyaabo kale oo fara badan ayaan ku sheegi doonaa halkan sida darteed ugu horeyn leegda muuqaalka kuna soo dhawaada muuqaalkeena dhameystiran hadaba soo dhawaada mar kale aynu ku bilowno horta su'aasha ugu muhiimsan iyo saameynaya horta marka ugu horeysa sharcigan cusub waxa uu saameynaya kaliya dadka ku jira YouTube Partner Program ama channelladoodu ugu xiran yahay AdSense ama habka lacag ka helista YouTube hadii aanad ahayn ama aanu kugu xirnayn sharcigan wax saameyna adiga kugu male su'aasha labaad ugu muhiimsan aan nimaadno waa maxay sharcigani muxuu yahay sharcigan cusub ee YouTube waxa uu saameynaya creatorska ama dadka YouTube wax ku soo gudbiya kuwaas oo aan ku noolayn Mareykanka ama US sharcigan waxa uu saameynaya YouTuberska tusaalahaan oo kala imika hadii muuqaalada laga daawado Mareykanka ama dad jooga Mareykanka ay daawadaan oo barta views ka heshid lacagta aad ka shaqaysay Mareykanka waxa laga qaadayaa cashuur kuwaas oo ka soo gala daawashada dadka ku daawada ee jooga Mareykanka sida ku taallaba yiraahdeen chapterka 3 ee adeega cashuuraha lacagaha internetka ee Mareykanka Google waxay u ogolaanaysaa inay ka soo ururiso informationka iyo xogta dhammaan channelada ay ugu xiran yahay ama monetizingka ee jooga US iyo kuwa aan joogin labadaba haddaad tahay qof jooga Mareykanka sharcigan hore ayuu u furay marka haddaad joogin labadaba waa laga rabaa sharcigan inaad buuxiso sharcigan waxa uu ogolaanayaa YouTube inay ka jarto dakhliga ka soo galay hadba meeshaas in kamida una jarto cashuur dawladda hadii tusaalahaan aad ka heshay $1 YouTube-ka oo 100 kamid ah ahaayeen lacag aad ka shaqaysay dhanka Mareykanka hadii aad buuxiso sharcigan YouTube waxa uu ka goynayaa lacag dhan $30 hadii aanad buuxin sharcigan oo aad ka dhagatirto YouTube waxa uu ka goynayaa lacagaha ka soo gala YouTube 24% kamida maaha lacagaha kaliya ka soo gala United States balse waxa weeyaan lacagaha ka soo gala meel walba waxa laga jaraya 24% sidaasna waxay ku noqonaysaa dad $1 shaqaysay in laga gooyo $240 hadii aan sharcigan buuxin hadii aad tahay qof ku hoos nool dal heshiiskooda jira Mareykanka dhanka cashuuraha ah hadii aad ka shaqayso tusaalahaan YouTube $1 bishii waxa laga gooynayaa lacag ku dhow $15 dib ayaan ka sharixi doonaa insha Allah su'aal muhiim ah ka waran hadii aanan dhiibin ama buuxin waxa laga baahan yahay inaan buuxiyo ama aan iloobaba inaan buuxiyo inta aan la gaarin bisha May ee sanadkan ama bisha shanaad ee sanadka sida sheegeen waxa laga jari doonaa lacagaha aad ka shaqayso YouTube oo dhan 24% ilaahdeen taas oo ay tahay sababtu maadaama aad diiday inaad buuxiso sharcigan haddaad noo hoggaansan weydo waxaan rabnaa yeeli weydo micnaheedu waxa weeyaan waxaan kugu sameynaynaa waxaanu doono taana waxay u sitaan sharci sida sheegeen cashuurta marka laga qaadayo qofka waxay ka soo gali kartaa meelo kala duwan sida tusaalahaan muuqaalada xayeysiiska saaran ee qof daawado tusaalahaan sidoo kale YouTube Premiumka sidoo kale YouTube Channel Membershipkaaga marka taasna waa ay saameynaysaa meelaha ay ka soo galeysana waxa kamid ah meelahaas iyo meelo kala duwan hadii ka soo galaan marka lacagahaas oo marka ka soo galay dadka jooga marka Mareykanka hadaba waa maxay micnaha arrinkani maalmaha soo socda sida sheegeen ama wiiga soo socda YouTube wuxuu ku soo weydiin doonaa inaad buuxiso nidaamka shuruucda ee AdSense-gaaga marka dad buuxin weydana waxa laga qaadayaa talaabo sida sheegeen su'aasha kale muhiimka ah ayaa lacag intee lag ayaa YouTube-ku iga qaadaya ama layga jaraya inta ka jawaab su'aasha waxaan oran karnaa waxa ku xiran dhowr arrin in lacag lagaaga qaado YouTube xoogaa geerad ka shaqaysay daawashooyinka Mareykanka qodobka koobaad ee ku xiran waxa weeyaan hadii aad buuxisay sharcigan iyo hadii aanad buuxin waa arrin koobaad ee ku xiran haddaad
buuxiso sharcigan waxa laga qaadaya lacag gooniya haddii aanad buuxin waxa laga qaadaya lacag gooniya qodobka labaad waxa weeyaan saameynta ku leh lacagta laga qaadaya hadba waxa weeyaan lacag intee leg baad ka heshay dadka ku daawaday ee jooga Mareykanka qodobka saddexaad ee saameynta ku leh ayaa ah haddii dalka aad joogto tusaale ahaan uu heshiis la galay dhanka cashuuraha ah Mareykanka marka ay heshiis ama taxaaluf ku wada jiraan si aad u ogaato marka dalalka kula jira heshiisyada Mareykanka waxaad ka heli kartaa link description-ka ku sheegaya wadamada kula jira marka heshiiska si guud ahaan waxaan oran karnaa haddii aynu saano wadamo ka xusa waxa kamid ah Canada wadamada heshiiska kula jira United States United Kingdom ba kamid ah Denmark Finland France Germany Norway South Africa Turkey Switzerland Pakistan Bangladesh iyo wadamo kale oo fara badan marka ayaa kula jira marka Mareykanka heshiisyo waxa dhici kartaa in kaaga hoos yareyso lacagta laga qaadi lahaa marka arrinkaas baad adigu insha Allah adigana baaran doona garanaya meesha aad joogto hadba qodobadaas marka saameyn ku leh lacagta laga qaadayo hadba inta ay tahay xudhiba ku yahay sharcigani Soomaalida ama YouTuberska Soomaaliyeed ee ka hela YouTube-kooda xogaaga lacagta ama YouTube partner programka kamid ah ama channel-dooda yihiin monetize-ka sidoo naqaano horta YouTube waxa ku shaqeeya wax la yiraahdo CPM ama cost per thousand oo marka qiimaha laga helo kunka qof ee ku daawada meesha ay joogaan marka waxa jirta system ku shaqeeya YouTube-ku ah kunka qof haday ka daawadaan meel saarahan lacagtu waxa dhici karta inay noqoto wax fara badan haday ka daawadaan meel kale waxa dhici karta lacagtu inay yaraadaan marka badan dadku waxay Soomaalidu inta dadka ku nool haday ku daawadaan saarahan qof oo jooga Maldiveska jasiiradaha Maldiveska waxa dhici karta YouTube-ku inuu kugu siiyo $15 kunka qof ee ku daawada dadku saarahan ku daawadaan kun qof oo jooga Soomaaliyana waxa dhici karta inuu ku siiyo 0.03 wax ka hooseeya marka waxa jira nidaam ama rank la sameeyo oo YouTube ku sameeyo marka sadkan ka aragto marka sida wadamada u kala horeeyaan CPM-kooda ka kartaa halkan sidoo kale insha Allah waxaan ku soo dhigi doonaa description-ka ka akhrin doontaa marka haga hadda liiskan Soomaali kuma jirta wadanka Jamaica ayaa kamid ah wadamada ugu hooseeya CPM-kiisa ama cost per thousand-kiisa waxa uu gaaraa 0.03 taas ayay ka sii hooseysaa marka Soomaalidu marka haddii marka intii la ka soo galisay Mareykankana cashuur lagu saaro dib ayaa barta ka imanaysa ama caqabad ayaa kaaga imanaysa dibtaas marka leeyahay sharcigan ku leeyahay Soomaalida iyo Soomaalida oo aan kama shaqeeyo marka nidaamyada salahan shirkadii kama shaqeeyaan marka kolay inta ku dibadda joogana xoogaa waa saameynaya aan haysan wax kale oo aha YouTube-ku ishooda haddii uu dalka joogo qofkaas wuxuu si saameynaya 100% oo qofkii oo aan YouTube-ku la shaqeyn dalkiisa haddana isticmaalaya YouTube wax soo gudbinaya muuqaal sameynaya waqti gelinaya waqti kaga baxay waxay ku tahay dhabar jab aad u weyn in haddana la sii cashuuro haddii uu diidana lacagtiisa laga jarto aftaas waxay ku tahay wajid gadab iyo gardarro iyo gaf kulay dad fara badan oo ka cawday oo jiraan sharcigan kulay sharcigan taas ku hirgalay dhibta weynna uu yahay shalay la maamahan YouTuberiska ku jira partner programka aan joogin Mareykanka waxa la soo diriyay fariimo sheegaya in cashuur laga qaadayo marka kulay siday ku sheegeen emailkaasna aniga lagama soo dirin oo YouTube partner program wali kama mid noqon balse kulay sharcigan waxay ku lahaayeen shuruucdii baa isbedelay fariintan kaaga muuqata marka ayaa loo diriyay marka dadka oo ay sheegayaan marka hanjabaad iyo isugu jirta may ay sharcigan hirgalaya haddii inta may ka horeeyay buuxin weedo lacagtada laga goynaya qayb kamid ah waxa tameynaysa hadaba haddii marka message-kaas ku soo dhicin ku jirto partner programka waxaad ka eegi doontaa insha Allah Google AdSense-gaaga marka meel kamid ah oo ka eegi kartaa marka saad u eegtana waxaad tagi doontaa settings kadibna waxaad ka sii baari doontaa meelahaas waxyaala ama warning ama digniinta la kulli qodob kale muhiim ah waxa weeyaan haddii aad tahay marka qof ganacsiga marka aad leedahay marka nooca koona oo ganacsiga waxa laga qaadi doonaa nooca cashuur oo gooniya 30% marka laga qaadi doonaa marka hadaad tahay qof kaliya ka 4% laga qaadi doonaa cashuurta kaasoo gasha YouTube hadaad diido man su'aasha YouTube-ku lacag miyaa uu ka jaraya isla markaa sida ay sheegeen waqtigan kaliya waxa laga rabo inaad buuxiso formka ama sharciga aad fuliso waxayna ku xiran tahay meesha aad joogto iyo waliba dalka kuugu xiran AdSense-ga man su'aasha ka war haddii aan lacag kaba helinba ama aanay daawan dad joogan Mareykanka sida ay sheegeen qof kasta oo ku jira YouTube partner program waa laga rabaa inuu buuxiyo sharcigan Mareykanka ha joogo ama yaanu joogin ha laga daawado ama yaan laga daawan dhammaan waxa laga rabaa qof kasta inuu buuxiyo
qof kasta oo markaa channelkiisu monetize yahay siday sheegeen haddii markaa aanad cidba ka daawan YouTube mustaqbalka kuwa ka daawan doona ayaa ay ka jari doona marka su'aal kale oo muhiim ah ayaa waran hadaan ahay qof jooga Mareykanka ka waran oo YouTube kana wax soo geliyo monetize aan ahay kulay sharcigan waa taqaanaa hadaad tahay marka qof Mareykanka jooga oo marka adeega bartina programka ku jira oo diida lacagta marka sidoo kale waxa la mid tahay YouTuberiska kale hadii aad tahay qof Mareykanka jooga adeegan hore ayaad u aragtay ama mar hore ayaabad ku jirtay halkaas inuu joogo muuqaalkeeni markaa maanta ku saabsanaa sharciga cusub ee YouTube 2021 bisha March ee ahaa sharciga cashuur qaadida dalka Mareykanka dadka jooga iyo dadka aan joogin waxaan filayaa wax badan ka fahanteen kulli anigu kuma jiro YouTube partner program wax lacag channelkan ma shaqeeyo marka hadii wax khaladaad yimaadaan waxa weeyaan khibrad aan u lahayn dhanka AdSense-ga manayhi qof la taliya dhanka cashuuraha kaliya muuqaalkan waa soo diyaariyay waxaan isku dayay inaan xoogaa dadka u sharaxi karo insha Allah wixii qodobo ah yaan halkan ku soo xusay iyagoo Ingiriisi waxaad ka helaysaa description-ka insha Allah halkaas ka akhrin doontaa waxyaabo fara badan sidoo kale dalku la leeyahay heshiiska Mareykanku ee dhanka cashuuraha waxaad ka akhrin doontaa description-ka hoose sida ay ku saameynayaan adiga hadda tahay qof jooga qurbaha dalka joogtina waxaan filayaa inay kugu filan tahay kulay AdSense-ga dalku ku xiran yahayna waa muhiim inaad ogaato oo aad garanayso insha Allah marka nidaamka loo buuxinayo isaga waa nidaam kale waana hab kale hadii aan laga maarmi waayo marka in wax ka ogaano isagana sida loo buuxinayo insha Allah waxaan isku dayi doonaa in ka sameeyno muuqaal ku saabsan sida loo buuxinayo kulay waxa loo baahan nidaamyo iyo process fara badan la raaco marka taasina wuxuu u baahan tahay waqti kale iyo sidoo kale in la helo qof loo buuxiyo ama YouTube uu furan yahay partner programku halkaas ay ku soo gabagabayn doonaa muuqaalkeenan maanta midaad ka heshay muuqaalkan ama waxyaabaha aan ku soo gudbino ood ku cusub tahay channelka fadlan nagu caawi inaad raado channelka subscribe sidoo kale aad furato notification-ka si loogu soo ogeysiiyo muuqaalada cusub waani waa Khalid Cabdiraxmaan iyo halkan Somali Tricks oo idin leh stay creative assalamu alaykum